horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino aryaadaha maanta raadiyo kulmiye iyo kooxdi kalamaan waxaa soo booqda guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaali wariyahoy lama golle reer xamad waxay kuma maahan qabdiiqu hays ma laga qaadi karo maxaa qabtaa qalbigay u woon tahay waana soo booqdi maxaa qabtiinas niyidi humaan miyaakaas waa sidaad u sheegtay raadiyo kulmiye iyo bahda kalamaan oo ku wacyi gelihayay inay dadaalkooda sii lama laabaan waa tiina hore loo yidhi haddoo qaaraaba waa qaaba qandhaseelayga qaadima muga calaa kulli xaal guddoomiye madaalana beriga waa shirbay wuxuuna yidhi kulmiye iyo kalamaan waxay kalsooni kasbadeen kulmiya iyo kalamaan waxay kalsooni kasbadeen wararta waxaan maqli jiray xaku doqon nasiib badan iyo dirac ayaan daran xaku daacad aamina haddana aan wax loo diran madaala isagoo 6 wada dhisay oo tii 7 dhagax dhigayo ayaa dhegta loogu sheegay in xilka laga qaaday war asaga qaldanaay markuu wadooyinka dhan dhisayo madaxda ka dambaysa maxay qabanaysaa wariya maygo wadaan hanka dambeeyay madalada meeli usnada miya iska masawirayaan may war anu gudoomiyaha waxaan oran lahaa dalka iyo kama daali jirin dawladdiisaba ha ka daalin degdeg buu u iman deeqeebay warnimayo maanta ra'iisul wasaare khayra waxa Kismaayo loogu soo dhaweeyay si aad u diiran dadkii Kismaayana qofna kama harin soo dhaweyntiisa war sidii Muuse Biixi cibaaraadka loogu soo dhaweeyay miya khayra loogu soo dhaweeyay Kismaayo kisada dad maqli jirteen magacii waa laga bedelo Kismaayo kaafisa loo bixiyay war hadda ra'iisul wasaare kistiisa ma ka tagay magac hore u baxay ma bedel maayo war dogon baadina wal bedelo nabad inoo laangayn ra'iisul wasaaruhuna wuxuu yiri Kismaayo waa kaafiso dadka ku dhaqanna waa dad nabad jecel war ra'iisul wasaaruhu Kismaayo markuu ka soo laabto bu'aala ma soo maraya war hadda ka hor gudoomiye hadda Caash wuxuu yiri Ahmed Madow waa ninka madaxda maamul goboleedyada uu madax adag marka waxaa la yaabanahay khayra siduu Ahmed Madow nabadiina hol ugu dhigay war wal mooshiidin maaha hadiya deerti oo lahaay khayra ku arag farmaajin kiin shibaadoy aryaadaha heesa waxay ahayd halla yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba hadii Ahmed Madow la khayreeyay xafna maal farmaajeeyo war xafdu samarab ku soo laabto galkacyo waa ka yimid wuxuuna yiri doorashada carrada lala wareegayo ma aqbali doono aniga iyo ahlu sunnana dastuur cusub baan samaysanay kii hore galmudugna waa nasaqnay dastuurkan cusub waxaan ku oolan cidii noola timaadana way iska dhicinayna war ma Bukhari baa soo wariyay mise Muslim war rawaahu Dr. Shaakir waay war xaaf ma kaliya taliya isu bedelay war yaa kaliya taliya haduu san noqon wada talintu wixii lagu wareero hore Soomaa aryaadaha xaaf inuu qaraabta kuma qaldanay wax kale ma haysiin war xala madaxweyne farmaajo wuxuu la kulmaa leeyri maamulka gobolka Banaadir iyo taliyayaashii ciidamada hatta gudoomiyaashii degmooyinka iyo taliyayaashii saldhigyadu waa joogeen aad ayuuna u canaantay baa leeyri wuxuuna yiri qaraxyadan yaa soo daayay iiga jawaaba haddaadnan wax ka qaban karin maxaad meesha u joogtiin marka waxaan la yaabana soo asagu ma keenin dadka uu canaananayo hadday wax tari waayeen meeshu ka keenay ma ku cisho qaraxa wax soo daaya annaguba waa garaweyn meelaan bajaaj loo ogoleen baawur weyn oo qarax sida soo dhex fariisanaya aryaadaha taas wax badan aan la yiri wax kale cusub ma haysiin oy lama goodley madaxweyne farmaajo ka oo buxoya Uganda saadooya haddaan ka horeeto markiisna ay Museveni kii oo lahay Uganda hayste asdahay Soomaali dawlad ma ka jirto farmaajo aas ma si fiican ma noocaysa ma asdahay mooshi wixii soo horsaday kalamaan waa xanaaqdi go'aan qaad hadda mar labaad waa noogu naqwanaay askarigi akhlaaqdiis as xunta jiri Soomaaliyan geena ma Soomaali college oo lagu dhaqan bedelaay ma ku yaala Uganda iska markiisna caayo kalamaan go'aan ay ka qaadataan marka aan waaba yaabe farmaajo kalamaan ma sax xarasho haya aryaadaha madaxweynuhu inuu nagu raacay ahayd inuu mahaas naga aadam ma ahayn wariya madaxweynuhu inuu annaga nagu raaco taladeena maaha madaxweyne isaga la raaca war maxaad Uganda ula yaabaysan Kenya safiirkeeni soo xiriisuba aaday war Yoweri Museveni in xisoona ma ahane anaga soo caaytamaay madaxweynuhu maamaanka safar u gala war diyaaradda Ethiopia Soomaali badan ayaa ku dhimatay la yiri hal wiil Cabdishakuur Maxamed Shihaad la yiraahdo
ayaa baasaboor Soomaali wataa la yiri laakiin 10 kale oo Soomaali ah baasaboor kale wadamo kale wataa ku jireena la yiri war diyaaradan waxay isku nooc ahaayeen diyaarad hore uga burburtay Indonesia waxaana sameeyay la yiri diyaaradan Mareykanka magaceedana waxa la yiraahdaa Boeing 737 ununkuna Boeing-taas waa mamnuucayna mug dambana Mareykanka ka soo gadamayno war adigu bini aadanka diyaaradaha ka mid maahidi maxaa isugu daraysaa war dawanka kana Soomaali Airlines madaxtooy korjeeya limooshiida rinjilay ka dhiman bas war madaxweyne farmaajo diyaaradaanu markay dhacday degdeg buu Itoobiya taxsi ugu diray madaxyadii xamar ka dhacayna 3 maalmood baa laga sugaya taxsida marka waxaan leeyahay taxsiyada Itoobiya waad la degdegaysay maxaad shacabka Soomaaliyeed uga soo daahday intaasan ku soo koobaya ayaan sii badin wariya geerilan langorlaan iyo inay gaajiro ka fayda fil leeymi leegneeda nabee Soomaaliya ayaan tawa iska hoogtay maxaa loo hoogin dardiirkiiba waafiigi iyo sagaaradii naga shibda adiguna wiliga aad meel xun la aadaahay ayaantan kufsi fool xuna yimida la yiri oo Cabdulla Mukafsi qurxan baa jira iga shibda wuxuu waa kala roon yihiin tii ugu dareed oo ugu xumeed shalayay beledweyne ka dhacday la yiri macallin dugsiya ardadi kala diraasow hal gabar yiri looxa waa ka bixi weysay soo her adug oo quraan dhigood ka bartaana nabe ka kadibna gabartii oo kufsada la yiri aasow ka kor madoobaada aasay gabartii eedo ooyayso dhiigu ka qubahayay gurigoori tagtay kugu dhac mugin la yirina macallinkiya yeelay tir lama heegin arkaasoo kale macallin lama yiraahdo muddi aalina war waxa ka sii daran gabadhu 9 jir ahayd baa la yiri kadibna macallinkii markii ciidanka ammaanku soo aadeen beeka imuu la soo baxay la yiri oo dugsiga dhexdiisa ugu kaydsanaya la yiri yaa taasu macsi hubaysan ahaahe taasu kallay kama sokeeye falkaas Daesh iyo shabaab taa sheegatay war waxa xali kaaran ka dhacay ka yaabadna waxa la qabtay nin sidii dumarku u libistay wuxuu wataa la yiri gorgoradii goonadii xijaabki saakadii macallin sharar oo u xirna waxa ka sii darneed markii rajabeetada laga furay waxa suuf laga soo saaray waraana saab beenta masuufa laga sameeyaa hatta bambeelmana wax la gashada ninka xawaala warniyo war ma haysaane gudoomiyaha gobolka Banaadir Yariiso wuxuu yiri xaruntii ciidanka badda ilaa heerta liido hal la baneeyo safaaradaha ku dalxiiska iyo caalamka oo dhan marka Soomaaliland israafka way qaadatay safaarad ma laga siinaya ana waxaan leeyahay lillaahi da inda beeshay runta aaminka weyday beenta aan ogolaanay danaysiga adibaystay arxakan ka fogaanay dhaqan maahan islaame ilaahow nabadbaadi ma ninkan dhasheerka wataad aragtay wax ka dhalanaa jira arro waran waxaan leeyahay madaxnimo bacnay leedahay Libiya maamuus muraad gaar ah iyo been hadaan lagula meeraysan mulki aan dhamaan iyo danbaa laga macaashaa dib baa loo majeertaa ninkaan maasuqayn jirin maatiirba Malaysia hadday soo marceliyeen war idinku malmaluuq iska daayaniyo wariya dawladda midnimada Soomaaliya nafta ogolaa idin teegana ariya midnimadiisana ma rabna horta Muqdisho nabad ha laga dhigo wariya midnimo iyo nabad ba wal rabaa Allah idin roge